أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي الأعزاء، جهة كستو أنو ذي كم وقنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهبينكي جمعه يا إنو وقلت لك الله أقون كرورسيغا علمي جود عاوة وحا إنه مرتئة دكتور أحمد آدم بوحنة، ودكتور أقون أولى علمي باطني أما internal medicine أما علمي أوركوشيرت، ودكتور أقون تيسو مركا هوري cudurrada guud ayuu aqoon badan u leeyahay. waa professor jaamacadda Camuud wax ka dhiga, muddo dheerna Hargeysa ku shaqayn jiray cilmiga caafimaadka, ilaa haddana hawshii gacanta ku haya. wuxuu leeyahay waayo aragnimo ilaa iyo dhowr iyo 20 sannadood oo cilmiga caafimaadka ah. تخصصات فربضنا ودياري دكتوركو waxaan ka codsanay isagoo boora ma jooga inuu nagala qayb qaato cilmiga aqoon kororsiga ee ummadda loo gudbinayo. waxaan ka marxaati tihiin inaan masaajidka ku marti qaadnay dhakhaatiir aad u tiro badan, aqoon fara badanna aynu ka faa'iidnay, macluumaad fara badanna ay noo kordhiyeen. nin walibana wuxuu aqoon u lahaa aynu ka martinay. dhakhtarkii ugu dambeeyay waataynu ka qaadanay can cilmiga macaanka, waxyaalo badan oo aynu aaminsanayn siday xayawaankii noogu sheegay. maantana waxaynu wax ka qaadan doonaa xanuunkan la yidhaha dhiigkarka, blood pressure-ka ama daqda dam ayaynu wax ka ogaan doonaa. waa cilmi aad u waasica, waa xanuun dad badani maanta ay la shaqaysan kari la'yihiin oo noloshoodii wiiqay, dhaqaalahoodiina hoos u dhigay. waa xanuun ilaa iyo hadda xalkiisu uu gundheeraaday, siyaabo badanna ku yimaada. dadka badankoodu waxay u haystaan dhiigkarku inuu xanuun yahay laf ahaantiisa, laakiin dhiigkarku isagu daata ahaan xanuun uma aha, ee waa calaamad xanuun baa la yidhaha. calaamad xanuun weeyaan dhiigkarku, oo asbaab badan baa keeni kara dhiigkarka. oo keliya xanuun baa keeni kara, goytarkaa keeni kara, cholesterol baa keeni kara, macaadinta jidhka qaarkood oo isbedela baa keeni kara. marka xanuun meel ku dhegan oo la odhanayo xubintaas ayaa abuurta dhiigkarka ma jiro, laakiin calaamad weeyaan inuu xanuun jiro kuu soo tabinaysa. marka diktoorkii aqoonta u lahaa ayaa caawa inoo martiya. dhiigkarka sidee looga badbaadi karaa? haddii uu kugu dhaco sideed u fahmi kartaa? haddii aad fahamto sideed isuga daaweyn kartaa? xaalado badan ayuu diktoorku qaadaa dhigi doonaa insha allahu tacaala. waxaana rajaynayaa insha allah inuu ilaahay carabkiisa waafajin doono hadallo fara badan oo taariikhda u gala oo intifaaca ummadda insha allahu tacaala intuu hadalkaasi duuban yahay. guda iyo dibadna waa laga dhegaysanayaa diktoorka. waxaan leeyahay diktoor ku soo dhowow ummadaadii
iyo ehelkaagii oo kaaga baahday aqoontaadii inaad wax uga sheegto falyatafadal jazaaka allahu khayra. جزاك الله خيرا الشيخ محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا ليال وحان عاوة سدا ولالكي يا شيخ محمد وينو شيغي عن دول مريدونا حنونا دا وكمد يحي ديكركو ولي كاسون عاوة أدو هذي دونو إلهي وحان كبريا إنو dhammaanteen qulubteena ka caafiya xanuunka inta uu hayana ilaahay ka bogsiiyo marka aynu akhrinana ilaahay diinka wax badan baan ka fahmi doonaa hal cudurdaar baa jiro oo anaga dhakhaatiir ahaan inkastoon anigu jaamacaddii muqdisho wax ku soo dhigtay jaamacaddii sancana wax ku soo dhigtay marka talyaani baan wax ku baranay markii hore markii dambana af ingiriisi iyo carabi baan ku baranay marka waxaad u malaysaa cudurrada in halkeennan aanan cilmi ahaan loo qorin marka way jirtaa in xaqiiqo ah in cudurrada wax badan aynu ka naqaanay laakiin imika haddaan idhaahdo dacar ama qaras ama oof ama jeeni wareen nooc loo qeexo cilmi ahaan oo la taabto waa kaa iyo kaa iyo kaa ay cilmigii kale sayniska lagu taabto ma aanu jiro waa gaabin anagu aan gaabinay intii ka baratay cilmiga caafimaadka saa awgeed magacaantii akhrintii wixii oo dhanba luqad ajnabiya un baanu ku haynaa saas awgeed raalli baad ka noqon doontaan waan isku dayay inaan af soomaali balballaaran ku sheego laakiin haddii meelaha qaarkood xoogaa nagu cuslaadaan saasaynu ku qaadanaynaa looma baran masaajidda waxaan in laga akhriyo laakiin asalkii diinta hoo asaasuu ahaan jiray culimmadu sida ay soo wardiyaan ama soo dikriyaan waxay yidhaahdaan sheekh aan cilmi dibbiga wax ka aqoon culimmada a'immada ee la yaqaano ma aanu jirin waa la yaraysan jiray bay culimmadu saas yidhahdaan waa la yaraysan jiray ninka cilmi sheegta aan cilmi dibbiga waxba ka garanay waa la yaraysan jiray maantana dad kooban baa lagu soo koobo taasaa keentay dhibaato alxamdulilah laakiin maanta intaan dadaalka badan la bixiyey wixii ka dambeeyey 2000 dad badan baa noo soo baxay aqoonyahan badan baynu leenahay marka waxaan dul mari doonaa xanuunkan si aynu u fahanno markaa horta waxaa la yidhaahdaa hypertension waa afkii ingiriisiga ka kalena waxaa la yidhaahdaa daqdu dam waa carabigii innagana dhiigkar bay yidhaahdeen dhinac kalena dhiig cadaadis baa la odhan karayaa waxa uu ku dhacaa xubno ama organo isku xidhan oo la yiraahdo cardiovascular waa xididada bini'aadanka jirka ilaahayna siiyey oo dhan iyo waxa weeyaan waxa la yiraahdo wadnaha labadaas ku dhacaa waxa weeye ku dhacaa xididada iyo wadnuhu ku dhacaa xanuunkaasi marka xididadena marka la cabirayo kuwa dhiigga ka soo qaado wadnaha iyo kuwa dib ugu celiya saas u wareegaan sida ma taqaanaa biyaha wareego kale ayay saa u wareegayaan oo ilaahay ma keenay hadday meel ka furanto dee dariiqa biyaha socdaa iyo way joogsanayaan marka way xidmayaan qofkuna uu dhimanayaa ilaahay baa ugu talagalay inay bartooda ku jiraan saasun u wareegaan deedna halkaas ka shaqeeyaan marka dhakhaatiirtu waxay yiraahdaan haddaynu soo qaadano xubintan oo aynu xididada isku xidhno oo aynu xarig dheer ka dhigno waxay gaaraysaa ilaa 60,000 oo mayl dhinaca kale waxay yiraahdaan maye waa 100,000 oo kiiloomitir waxyaalaha qariibkay ka mid tahay jirkaaga haddii xubin loo jarjaro oo waxa xidid ku yaallo keliya la isku daba taxo intaasay gaaraysaa meel aan jirkeenna xubnaheena meel aan jirin weeyaan meel aan xidid ku jirin xubnaha dhintay oo keliya waxay yiraahdaan kuwa keratin baa la yiraahdaayo waa timaha
iyo cidiyaha labadaas uun baanu ku jirin xididadu soo gaar laakiin inta kale jirkeena ah xididadu way ku jiraan sidaa awgeed waa xubin aad u weyn xubnaha ugu waaweyn jirka bini'aadanka laakiin aan la aqoon weeyaan haddaba waxaa dhacaya dhiigga sida u socda sida biyuhu kale u wareegaya ee bamkii soo garaacayna uu yahay wadnaha ayaa waxa ku dhacaysa ciladaas maxay tahay markaa laba tusaale siinayna tusaalaha kood waxa weeyaan ma aragteen mar allaale iyo marka shay aad cadaadiso socdo kaba soo qaadimika banjarlaha oo kale mar allaale iyo marka la rabo hawada in xoog lagu soo saaro maxaa la sameeyaa tuumbeer baa la sii geliyaa tukayar baa la sii geliyaa taasi maxay keentaa xataa dhawaaq bay samaysaa xoog buu ka soo baxdaa hawadu hadduu doonayo inaan ka shaqaynaya markuu xataa dhashka farkiyo kuu yaraa buufinayo afku ka furaayo bahal weyn oo gacantu ka qabtay inaguna marka imika biyaha waraabinayno oo kale tuumbada biyaha socda haddaynu aad u cadaadino aad bay u duushaa meel fog bay gaadhaa macnaheedu waxay ku muujinaysaa cadaadiskaas marka cadaadiska lagu sheegaa waa kaasun jirkeeniyo caadiya dhiigeeniyo qulquliyo wanaagsan ayaa ciladan baa ku imanaysa xididadii ayaa cadaadismaya dabadeedna qulqulkii dhiiggii ama biyihii ku dhex jiray gudahani xoog bay u soconayaan horta inta lagu sheegay la fahmaya waa intaasun weeyaan hadhow tilmaanka dawada u galaynana waa arki doonaa tan baan ka raacaynaa biyaha xooga u socday cadaadis ku dhacee tuumbadii yaraatay sidee baynu kaga dhigi karnaa mid qulqulaya baa noqonaysaa example yaro basiida haddaynu tuumbada biyaha furno oo kale waxaanu naqaanaa inay xoog ku socoto biyaha soo maaha mararka qaarkood marmarna caadi buu qulqushaa soo maahan haddii cilmi ahaan lagu weydiiyo la war biyaha xooga ku socda maxaad seed ku yareyn lahayd waa laba inaad xidho ood xag ka soo xidho iyo inaad tuumbo ballaaran aad geliso diameterkii waxa la yiraahdo tuumbada afkeedii aad ballaariso taa baad ku xallin karaysaa dhiigga lagu sheegay marka waa intaasun haddaba waxa u baahan tahay yuu ku dhacaa halku kaga dhacaa suu ugu dhaca bini'aadanka ilaa hadda cilmi ahaan waxaa ku qoran annawm lama yaqaano وما أوتيت من العلم إلا قليل إنجي يعني حنونك ولا قرنيا أو دبات ولا قرن لكن محاو أصلا حلكو كي مادا سو كي مادا إلا هذا الله محي لما نوع بالله كلا قيبيا وحنا بقول كيبا تضبية السجاشن وحلي هذا ديكرك عادية essential hypertension ديكر عادية اللي هذا سيد عادية لما يقال مشو كي مادو لكن waxaa la daada u dhaxaysa 9 ilaa iyo 7 iyo wixii ka sareeya ayuu ku dhacaa una badan yahay ayaa la yiraahdaa waa la arkaa carruur ku dhaco labada jinsina uu ku dhacayo rag iyo dumar uma kala socona laakiin daada 9 wixii ka dambeeya ayuu ku dhacaa saas la yiraahdaa ka soo horeyn kara macnaheedu weeyaan xanuunkaasi marka qayb kamid oo 3% ah culimada qaar kood 5% bay gaarsiiyaan ayaa wuxuu leeyahay waxa la yiraahdaa waxa keena secondary hypertension baradaayo waa mid thanawiya oo meel ka yimaado la yaqaano sida dadka cuna kiniinada qaar kood dawooyinka qaar kood hormooniska ku jiraan steroid kaleedo kaleento oo xanuunka kushin oo kale ku dhaco ama si caadi u isticmaalo kuwaas oo kaleento waxa loo isticmaalo waxa taanan dawladda baridinsolonka ya taqaana balmana kuwan xiiqda loo cunayo dadka noocaas oo kale uu ku dhacay dhiikarku hadduu kaliya xanuun jiro oo xanuun waxa jira xoog badan oo kansar yar ah feeyo koromad Soomaaliyeed kaas oo kale hadduu ku jiro dhiikar buu keenaa xanuunada qaar waxyaalo kale way keenaan laakiin cilmi ahaan intaan naqaano ee kafraha badan ku dhaca bini'aadanka aqoon looma laha meeshu ka yimaado laakiin cilaajintiisa iyo ka digiddiisa iyo ka wacyigiisa la yaqaan waxyaalo kiciyana way jiraan marka waan sharaxaynaa markaa waxaan leenahay markaasi da'daas uu ku dhacaa sida oo kale marka adduunka la cabirayana waxa la yiraahdaa 139 bilyan macnaheedu 1.139 macnaheedu 1 bilyan iyo waxa weeye 390 milyan oo bini'aadan u haya macnaheedu waa cudurada ugu faafsan waxa cudur faafa ma hayso
cudurrada faafa isagu maaha waa cudur aan faafin laakiin lama kala qaadayo macnihi haddaan anigu qabo ama laakiin waxaa laga yaabaa tafiirta waalidka hadduu waalidka qaarkii xagga hooyada ama xagga aabbaha uu cidi qabto waa suurtagal qofkii inuu u soo tallaabo ayaa la yidhaahdaa xanuunka noocaasa marka ayaynu caawa sharaxaynaa iyo dhibaato bilaadan ku hay iyo sida uu yahay haddaba markaynu sharaxno waxaan leenahay wuxuu keeni karaa wuxuu ku dhacaa baan leenahay dadka ilaa iyo 1.39 buu ku dhacaa waxaa la yidhaahdaa inta badan dadka uu hayo boqolkiiba 46 macnihii waxaan ka jaraynaa 54 baan ka jarnay 46 boqolkiiba ma oga inuu xanuunkaasi hayo ma oga dabadeedna isagoo iska caafimaad qaba oo cillado muuqda lahayn unbuu tagaa goobo caafimaad ama qalabka soo qaatay shir saaraa dhiikar badleedu ma lagu yidhaahdaa dhiigaagii wuu kacsan yahay qofka lagu yidhaahdaa macnihii waxa weeye dadka badankoodu ma oga weeyaan waxaa la yidhahdaa sidoo oo kaleentana boqolkiiba 42 waxaa la yidhahdaa waxa weeyaan qofkaasi dhibaato weyn buu gaadhsiin karaa lamana ogaado waayo iminka waxaa la isku haystaa doodaha cilmiga adduunka xagga caafimaad ka socda waxaa ka mid ah war sideen u raadsanayaa anigu caafimaadkayga xaaladayda caafimaadka ku ogaanaya dad waxay marayaan in ay noloshoodii caawu seexan waayey hurdo fiican buu geli waayey wal badan baa ku bilaabmay cilad buu arkay kaba soo qaad lug baa yar xanuuntay uu ordayaa isbitaalku tagaya subaxaba innagana waa taqaanaa dhakhtar cid lama xidhiidhno waxa lama xidhiidhno waa dhaqan aan soo baranayo aad u horeeyay qofku waxa laga yaabaa isagoo xanuuno caadi qaba inaanu dhakhtarba teginba anaga waxa noogu daran kuwan waxbay dilayaan kuwa wax dilaya qofku ma basbaaraba kuwa kale ee مثلا qaaxado kale iyo isbitaalka qaaxada ka shaqeyn jiray muddo dheer waxaan la yaabay qofkii sanbabadii ama TB-dii sanbabadii ay cadaadeen ayaa lagu keenayaa adduunyadana waxa wacyigelinta loo sameeyaa oo dareemaya maanta Sheekh Maxamed Ilaahay jannada ha geeyo uu noogu yeeray wax kale maaha waa wacyigelin qofku inuu khibrad u yeesho uu degdego qofkiyo xanuunka wax looga qaban karay waa hadda isdaweyso Ilaahay biidni Ilaahay taala caafimaad badaleysa waxa inta inoo raaca marka waxaan leenahay dadka badankooda haddana kuwa og xataa waxaan leenahay boqolkiiba 20 siday soo cabireen macna waa tirikoob adduunyada lagu sameeyay weeyaan waxay leeyihiin dadkaas isma daryeelaan iyagu og xanuunka inay qabaan ayaan haddana istaryeelin oo aanay ka hortagin ciladii keenayay dawooyinkiina aanay qaadanin marka waxaan leenahay arrimahaas oo dhan waxay keenayaan cilad bay keenayaan waxa la yiraahdaa marka tiradan bini'aadamka soo sheegnay dawladaha dhaqaalahoodu aadka u sareeyo waa taqaana cilmi ahaan waxay sameysteen dhakhtarra gaari sameysteen oo nolosha private ka systemka ee imika ku dhaqanay inagu kuma dhaqmaan dhakhtar baa u jooga wadamada adduunka qolada Mareykanka waxa la family medicine oo dhakhtar takhasus u jooga halkaas oo u tagayaan waxa uu soo sheegayaa way ku qoran liiskiisa faylkiisa nidaamkiisa ku qoran barigan waxa la Yurubta galbeedna waxa u badan waxa la GP baa u badan oo dhakhtar gaaro ayaa u qoran kaasay ka soo baaraan oo soo ogaadaan lambarkiisa ku qoran magaciisa ku qoran liiskiisa adresskiisa caruurtiisa ma ku qoran halkaas ka baaraan marka inta badan inagii marka waxa laga yaabaa wixii inuu private bato nidaamka dawladnimada waxa laga yaabaa maadaama khalkhal badan ku soo dhacay imika la saxaya weydadaan dhakhaatiirta dawladda u shaqeeyay haddana dadka badankoodu waxa malaysa inaanay ku ord badnayn markay mowduuca ka hadlo waxaan leenahay dadka dhaqaalahoodu liito baa la yiraahdaa wadamada sida Soomaaliya Soomaaliland ka mid tahay Ethiopia ka mid tahay waxa la yiraahdaa wadamada kooban ee danyarta u badan xanuunadaasi aad bay ugu badan yihiin dadkooduna waxay hayaan 67% xanuunadaas ku dhaca meesha wadamada kale ugu yaraan wacyigelin la wado oo loo sheegay tusaale ka soo qaad marka la yiraahdo qofkii warbal noloshan fadhiga u badan ee aynu qabatinay ka bedel noloshaada inagu ma qaadana inta badan oo qofkii waa dukaan buu haystaa macdaar buu haystaa maxay buu haystaa dhakhtar buu yahay meel un baa la fadhiyaa dadka badankeeni waadi ka arkay imika adduunyada kale waa la ordaa jimicsi baa la sameeyaa waa la socdaa waa ka sheekeyn doona waxa ay qaabka wax looga qabto badankooda haddaba cilmi ahaan xogaa waa la kala turroonaaday cid baa laga soo qaata cilmiga
marka imika soo qaad qolo la yiraahdo American College of Cardiology ragaasaa laga soo qaataa cilmiga marka takhasus kastaba oo iyagu baxthi badan iyo hanti badan lagu bixiyo waxba soo saaray dhammaan waxay cadeynayaan markaasi dhiigkarku inuu cillad weyn yahay oo u baahan in aad kala saarto marka cabiraysana laba nooc waxa la systolic iyo diastolic waxa la yiraahdaa xagga sare oo noqda 120 xagga hoosena 80 inta dusha kala xifdiya marka dhiiga laga cabiro waa in xagga sare noqotaa 120 ilaa 130 mare xagga hoosena 80 noqoto weeyaan inta markay tahay wixii ka sareeya hadduu ka hoose 80kii soo kordho 90 yimaado 100 yimaado 120 yimaado waa cudur hadduu kan sare 120 kama bilaa 160 ka aniri oo kordho oo 140 150 100 noqdona categories baa loo kala saari doonaayo waxa la oran doonaa waa dhiig kar caadi ah dhiig kar dhexdhexaada iyo waxa loo yaqaan malignant waa xad ka bax ayuu noqonayaa marka macnaheedu saasaan dhahaynaa marka waxaan leenahay xanuunkaasi aad iyo aad buu u dhib badan yahay sidoo kale waxaan leenahay way yar jirtaa marmar wax la isku yar khaldo waxa la yiraahdaa dhakhtarka marka ugu horeysa u tagto waxa la yiraahdaa white coat syndrome oo imika Sheekh Maxamed waa kan ka shaqeeya arrimahan duulka hoose waa ka shaqeeya marka soo yar gasho jiraaca ku yar qabanaysa markaaba waa dabeecadda dhakhtarka iyo bini'aadanka ka dhaxeeya dhakhtarkii shaarka cadu xiriyay marka loo soo galo ee lagu cabiro marka buu boodaya dhiigaagii marka waxa la dhakhtarku inuu go'aan ku qaadan marka ugu horeysa hadaanu aad u kacsanayn oo yiraahdo qofkan waxa laga yaabaa white coat-kii oo shaarkii cadaay dhakhtarku xidhnaaba cilada in loo dul qaato ayaa ugu muhiimsan baa la yiraahdaa waxa leeyahay markaasi xanuunka noocaasi calaamado leeyahay bal kelimada aad u dhageysta calaamadaha uu leeyahay marmar waa bila calaamad waa ka soconaysa qof wuxuu ka ornaya iyo madax xanuun dareema madax xanuunkan waxa laga yaabaa inuu qaato inuu paracetamol iyo kiinadiina suuqa yaalo seer laqo qofkaasi iskar laqa laga yaabaa oo yiraahdo sadle laakiin calaamada ugu muhiimsan waxa kamid ahaa waxa la waxa kamid ah madax xanuun baa kamid ah sanka oo dhiiga ama gorar baa kamid ah waxa kamid ah daal iyo culays qofku dareemo oo nashaadkii activity-ga uu lahaa oo dhan oo hoos u dhaca qofku waxa laga yaabaa inuu aragiisu tabcaamo oo ka sheekeen doona sababta keenaysa waxa laga yaabaa qofkaas inuu dareemo feer xanuun ama inta xabadka iyo feeraha soo inay xanuunaan qofku waxa laga yaabaa naqasku inuu culays ahaan ku qabto qofku neefsigiisi inuu cuslaado waxa laga yaabaa garaaca wadnaha qofku inuu ka dareemo inuu isbedel weyn jiro waxa laga yaabaa markii qaar qofkaasi inuu kaayada in yaroo dhiiga ku arko oo suurtagal weeyaan waxa laga yaabaa qofkaasi dawakhaad inuu yeesho oo uu dawaxo markaaba waxa laga yaabaa qofkaasi qof kacsan oo diiran buu noqonayaa qofkaas waxa laga yaabaa inuu dhidid badan yeesho waxa laga yaabaa qofkaasi habeenkii markuu seexdo inuu markaaba khalkhal ay ka tahay hurdadii raaxada uu seexan jiray inuu seexan waxa laga yaabaa qofkaasi sidoo oo kale in indhihiisa kale dhibco casaan ama dhiiga ay soo yar fadhiistaan waa suurtagal weeyaan macnaheedu calaamadahaasi waajib ma aha oo nidaam ma aha dhakhtarka waxa la xisaab ma aha waxa aan sheegnay qofka laga wada helo ma aha laakiin waxa laga yaabaa qayb kamid in qofka ay ka soo baxdo inay ka soo baxdo qayb kamid ka soo baxdo laga yaabaa waxaanu soo sheegnay markii hore marka inaynu xiidadani ay cadaadis bayaan dhiigiina garaac xoog badinayo marka isku biiraan dhiigiyo xoog garaac u badinaya iyo isku beegmaan xiidayo dhubnaaday macnaheedu waxay ku muujinaysaa dhiigaas wuxuu ku dhex marayaa xiidada cadaadis orod badan iyo degdeg buu ku dhex marayaa markuu qofkii jirkiisii soo galo kaba soo qaaday xiidadii maskaxda waxa ugu muhiimsan maskaxdii buu soo galay qofkii dhiigina xoog buu guuxayaa u socdaa maxay keenaysaa marka qofkii inuu ciiro aragiisu inuu koobnaado madax xanuun badan inuu yeeshay keenaysaa xubnaha kale jirkana saasay ku noqonaysaa marka keliyahoo kale oo 25% qaabilo dhiigga ka soo baxa wadnahana waaba ciladaha ugu horeeya kaliya fariisiga keenay weeyaan ilaahay naga haye xubnaha kalena saasay dhamaantoodba ay noqonayaan wadnaha qudhiisi garaacan xoog loo garaacayo xiidadiisii dhiigga siinaysa qudhidiisa ayaa isna dhibaatoonaya marka waxa leen calaamadaha arkayna waa calaamado dhammaanba ku xidhan awoodda dhiigga ee maraya weeyaan ku xidhan weeyaan waxa leen markaasi waxyaalaha xasaasiga ee qofka aan arki karno inuu u sii nuglaan karo xanuunkan
waxaa ka mid ah haddii qofkaasi uu leeyahay taariikh wadna xanuun oo kale macaan hadduu leeyahay hadduu macnaheedu waa sii siyaadinaysa xanuunkii ila faham xanuunkii wuu jiraa soo maahan xanuunkii laakiin hadday ku biirto intaan aan akhriyaynaa way sii siyaadinaysaa oo dhib badan bay keenaysaa waxaa ka mid ah hadduu dufan subagii le kolestaroolkii leeyahay hadduu keliya xanuun qofkaasi leeyahay hadduu qofkaasi sigaarka iyo balwadaha dee ku baas yahay hadduu qofku raashinkiisa aanu ilaalinayn oo dee wax walba afka gelinay marka la sii da'weynaadana markaa soddonka la gaadho wixii ka dambeeya waqtigii la is ilaalinayay baa lagu jiraa okay waalidkoo kale hadduu lahaayoo kale way sii cilaadaynaysaa oo kaleento qofka hadduu buuran yaho miisaankiisu aad u weyn yahay oo kaleento overweight hadduu qofku noqdo iyo wixii la mida da'diisu hadday 65 kor u dhaafto da'diisu 65 hadday kor u dhaafto sida oo kale waxa la yiraahdo inta badan wuxuu ku badan yahay xagga dumarka dadka badankoodu taa kuma baraarugsana wuxuu ku badan yahay xagga dumarka rag iyo dumarka marka la eego waxa weeyaan dumarka ayuu ku fara badan yahay garaaca wadno hadduu qofkaasi cilad ka qabo wadno intuu si aad u garaacii kalna ku sii biiro waxay keenaysaa dhibaato kasta weyn bay keenaysaa iyo wixii la midka ahaa kaba soo qaad gabadha oo kale hadday caado hore uga go'do kale cilado badan baa jiro yimaada markay dumarka waqtiga sunnada ay ka goodo ay gaadhaan iyadna waxay keenaysaa cilad badan bay keenaysaa macnaheedu inta waxaan kala jeednaa in la fahmo cudurradaasi dhammaantoodba inay israacsan yihiin inaan fahmnaa fiican su-aashu waxay tahay marka intee xubnood ayuu dhibaatayn karaa dhiiggaasi xoogga u socdaa waaye dhiigga waxaan sheegnay inuu xoog u socdo cadaadisna ku socdo waxaan leenahay markaa xididadu xididba xididkuu ka yar yahay labuun bay noqonayaan inuu xidho oo cadaadis buu ku socdaa iskana xididkiina uu sii cadaasmayaa dhiiggiina xoog buu ku socdaa inuu xididkii xidhmo iyo xididkii inuu qarxo xididkii inuu dilaaco ama xididkii inuu xidhmo labadaa unbaa ugu badan cudurrada ku keeni karaya waaye tusaale waxaa ka mid a maskaxdii oo kale halkan waxaad ku qaadateen doctor Gaboso macalinkaygii halkan weydiisay casharka waxa weeyaan in uu keeno stroke ama falij ku keeno falijku waa laba nooc inuu xidid xidhmo oo maskaxda intii xididkaas ka xidhmuu nafaqaynayay ay dhimato dabeedna qofkaasi uu qaybtaas bilaa oksijiinta iyo bilaa nafaqada noqotay dhammaan ay dhibaatoodo qofkii markaasi dhinac dhan uu qalalo ama carabkii hadalkii ku adkaada iyo wixii la midka ah waxaa jirta laakiin kuwa ka sii xasaasisan oo dadka markaas looga digo oo la yiraahdo iyadoo taasi jirto taasi waa in weyn oo jirka ka mid ah dhiigiyo meel weyn xidhay weeyaan laakiin dhiigu waxa xidhmi kara mararka qaarkood meel yar waxa loo yaqaanaa micro infarct in yar baa xidhmi karta tajallud baa dhici kara wax yar baa xidhmi kara taasi waxay keenay laga dareemi doonaa qofka marka dambe qofkiiyo xasuustii luminaya qofkiiyo garashadii luminaya oo garashadiiba ay ku adag tahayba xasuustii hore taariikhdii qofkiiyo luminaya qofkiiyo la arkaya inay wax ka sii dhaceen maalin ka dambaysa haddana calaamad muuqato oo faalijkii weynaaya haddana qofkii kama muuqdaan laakiin waa maxay markuu qofku control waa kaasii keenaysaa markaasi iyo wixii la midka ah waxay keeni kartaa taynu sheegay xidhmashadii xididka ama qaraxii ama dilaaci uu sameeyay waxay keeni kartaa marka in yar unbaa socon karta hadhow tole marka mashiinada la galo la sbaarayo unbaa warniyo halkaa niyo bari hore wax ku taabteen qof wuxuu maba dareeminba anigu maba dareemin saa awgeed waxaan u bixinay xanuunkii dhammaantiiba silent killer baa la yidhahdaa dilaaga qarsoon ama aamusan baa la yidhahdaa ciladii uu sameynayay oo dhan waxay noqotay inuu qofkaagii dhannaa uu dee qof mucawaq uu ka dhigaya qof mataqaanaa yacni lixaad la uu ka dhigaya lixaad la'aantuu ka dhigay ayaa keenaysa markaasi inay mar kuu qarsoomi karto oo hoostaasu kaa guraya marna waxay keenaysaa markaa inuu calaamad weyn oo muuqato oo faarija kuu dhufto kale wadnihii oo kale inta badan marka dhiigku xoog badan wuxuu keenaa wadnuhu waa 4 qaybood marka hore waa badan yahay laakiin waa 4 qaybood waxa weeye waa 2 haamood oo sare iyo 2 haamood oo waaweyn marka ta bidixda oo left ventricle taasi ayaa bararta marka way weynaataa waa tan dhiig badan jirka gaarsiinaysa soo tuuraysa weeyaan
taasaa markaa bararta wixii ka dambeeyana waa cilad iyo dhibaatay keentaa keliyihii waxaan leenahay inta badan waxay keentaa keliyuhu fadhiista waadika arkayo qofkii loo maydhayo keliyihii oo wixii keliyuhu qabanayeen mashiin u qabanayaan ama ugu dambeynta la qaadayo oo leeyahay adduunyada la geenaya oo u baahanay maanta inaga qudhadeenu markaa dadkii inay isku noqdaan shacbi weynaheeni iyo dawladeeni oo la qaban qaabiyo si keliyaha loo bedelo in dadkii loo keeno waayo waa cudur faafsan oo bilaadan ku dhacay kii dan leh ama kii ilaahay jeebkiisa wanaajiyay baa dibadda u dhoofa oo loo soo bedela inta badan laakiin waa xanuun xaqiiqo ah markaa tagto imka isbitaalkeena guud ee dhex fadhiisato qaybta sifaynta keliyaha shiraac ku qabanaysa khalqiga ilaahay meesha leynaysa ku jira ee dhalinyaro waayeel iyo dhinac kastaba leh okay waxa leeyahay markaa 63% macnaheedu waxay baaba harayba 63% dadka bini'aadamku ku dhadhii karkaas wuxuu keeni karaa kaliya fadhiis marka keliyuhu fadhiista inta badan 63% waxa keena dhiikarka meesha 53% laga yaabo inay keento baasha la yiraahdo macaanka uu keeni karayo xididadeenii way sii adkaanayaan maadaama xoog lagu isticmaalay way sii adkaaba ka dambaysa ilaa ay adkaadaan oo atherosclerosis noqdaan oo xidhmaan marka qaarkood iyo waxa la midka ah indhihii oo kale ayuu wuxuu ku keeni karaa xanuuno fara badan wuxuu keeni karaa in dhiig ku furmo indhaha wuxuu keeni karaa inay mataqaan xididadu ballaadmaan aneurysm baa la yiraahdaa way ballaadhaan aneurysm baa la yiraahdaa way ballaadhaan marka qaarkoodna waxaa dhici karta wax la yiraahdo cortical blindness baa dhici karta oo qofkii sidoo u joogo baa loonayaa saaku soo kacay waxa ma arkayo complete arigu u dhaqaaqayba ee dhacaysa marka qaarkood indhihiina saas ku sameeyay marka waxa leenahay xanuunkaas dhibka inta leeg leh wax la daawan karo ama la suugi karo midna maaha wax la suugi karo maaha waxa leenahay hadaba xanuunadaas maxaa la socon kara keligii ma socdo marka qaarkood inta badan xanuun baa soo raaca inta badan waxa soo raaca dhiikarkii oo saaxiib yihiin ama markasta isaguna sababi kara kana hor bilaabmi kara xanuunka loo yaqaano wadnaha xanuun qofkii oo imika waad maqashay ma jeclay xarunteena gargaar waxa lagu sameeyo xiidada markay xidhmaan lagu yar furo wadnaha anu waxaan ka tagay isagoo 500 iyo waxoogaa qof lagu qalay baan ogaa habeen dhowda ribood bixinayeen oo mirada kunkii waan dhaafnayba waxay ku muujinaysaa markaas degdega dadkii ee xanuunkaas u qabanayay khalqiga ilaahay xanuunka leh inay soo fara badanayaan waxay noqon kartaa inay la socdo xanuunkii dhiikarkii qofkii lahaa stroke marka xayradaa marka koowaad faalij kugu dhufto waa digniin tii ay u badan tahay ama uu kugu dhuftayba laakiin waxa la hadduu mar labaad kugu dhaco xanuunku ku hayaa wali Soomaa xanuunkii meesha laga ma saarinay inta ma xirada waa marka geeridu imanayso wixii ka dambeeyana waa geeri barada waan maqalnaa qof la 2 jeer 3 jeer buu ku dhacay haddana dib badan buu keeni karaa inta maxaa laga ordaya walaal stroke baa kugu dhuftay ilaahay ma keenay waxa ku dhacay dhiikarkii muxuu kugu keenayaa wuxuu kugu keenayaa jirkaaga inuu fadhiisto qayb jirkaaga kamida ama jirkoo dhan fadhiisto waxa laga yaabaa carabka inaad haldi kari weydo aragaagu inuu liito oo waxba arki kari weydo afka iyo dhankii dhaqaajinkooda dhacaanka iyo wasakhda laga dhaqaajiyo waxa laga yaabaa xagga hoose kaadada iyo saxarada in laga qaado nolol ma taqaan suuliga ma tii kartid meel lama gaari karaysid wadinka arkayood ilaahay nooma keenay dad waxa arteen 7 sano 8 sano qaar 10 sano la gaarsiinay xanuunkaas intuu ku dhacay dul yaala wari sariirahoodii oo halka lagu hayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu ka bari jiray ilaahay inuu san gaarsiin waxa imika soo qaad inuu qof markuu geeri xaal dhinto si caadi isku raaco ayuu fiican yahay hadii laakiin jirkaaga la jarjaro ama intuu faashufto kaada laga qaado oo waxa la quality of life ay ka baabo noloshaadii aad waxba qabsan kari weydo way dhib badan tahay rasuulku wuxuu ka ilaahay ka magan galay ardul umar waa da'da asaasaqa la yiraahdo wuxuu ka magan galay sayil asqam wax alla wax cudur xun ee dhibaato keeni kara ee qofkii bil aadanka meel xun dhigi kara ilaahay baa laga bariyaa marka inaan ka barno ilaahay oo qurux badnaan lahayda haddii maalin geerino imanayso yari iyo weyne inta ha noqotee adoo dhan oo caafimaad qabo quruxdaada iyo wanaagaaga ilaahay israacda qurux badnaan lahayd runtii intuu ku dhacayna kuma wiirsanayno waa dadkeena iyo walaalaheen weeyaan ilaahay inuu caafimaad sariic siiyo ayaa runtii aan ugu ducaynaynaa wuxuu keeni karaa kaliyo ku fadhiista wuxuu ku keeni karaa
wax loo yaqaano in wadnihii ama xaja samabadii uu naqaskeedu adkaado qofku waxyaalaha kale ee keeni kara la socon kara waxa kamida macaanka dufanka rheumatic disease-ka iyo xanuunada qaarkood oo sida kuwa maskaxda ku dhaco kale qofku psychiatriga leeyahay ee waalnida iyo wax la mid ah ku dhawaan kara ayaa keeni karta sida oo kale waxa la yiraahdaa wuxuu ku dhici karaa caruurta dhiigani ku dhici karaa wuxuu kaloo ku dhici karaa qofka dumarka ah ee uur kale uu ku dhici karaa wadii ka arkayo waxaan naqaan inuu aragawdo carabkay carashatay baan inaana inta badan oo way barartay baan inaana inta badan marka wuxuu ku dhici karaa dumarkii wuxuu ku dhici karaa waliba xanuuno culus oo fara badan ku keenaa dumarka mataqaana uur kale iyo wixii la midka ah sidoo oo kale wuxuu ku dhici karaa dhiig karbu kaga tagaa dadka hablaha badankoodu marka ay noocan noqdaan waa loo xisaabiyo waxa yiraahdaa hadii ay mar ku dhasho ama laba jeer ku dhasho wixii ka dambeeyay dhiig kar caadi qaadaysa waxay kaloo keeni kartaa inuu sii socdo dhiig karkaasiba oo imika gabadha markay dhasho oo kale inuu ba sii socdo suurtagal weeyaan ama ka dhaqaatiirtu waxay isweydiinayaan oo kale gabadha maxaad ka sameynaysaa dawlad siinaysaa si loo daweynayaa ilmahan uur ku jira si loo badbaadinayaa sidoo oo kale gabadha way suuxaysaa way gariiraysaa way suuxaysaa ay sameynaysaa maxaa laga qabanayaa markay dhasho oo kale ama aad jeexday aad la soo kala furo ilmihii hooyadii ilmihi haysato dawooyinkii ma la siin karaa ma loo wadi karaa naasku ma u gudbinayaa yani waa doodo badan oo cilmiyo iyo qaabka loo sameynayo way u baahan tahay waxa kamida emergency ay sameyn kartaa oo waxa la waa calaamadii caadiga ah laakiin waxa leedahay ma dhici kartaa dhiikar aan la cabiri karin uu yimaado uu iman karaayo waxa la hadii uu xagga sarana 200 ka bato oo meeshan 100 ka niri 80 buu dheeraaday ama ka sii bato 200 buu gaaray ka badan xagga hoosana 80 ma ka doonayno wuxuu noqday 120 wax ka badan buu noqday deedna waxa leenahay inta badan kaasi wuxuu keeni karaa in dhabeelku keena iyo wax la mid uu keena wuxuu kullu keeni karaa waashi waxa la kooma qofku inuu miyir beelo oo miyir beelkaasi lagu dhigo ama suuxdin buu keeni karaa qofku inuu gariiro iyo wax la mid ka buu keeni karaa iyo ay koosu keeni karaa intaas soo nooc waa inta nooc ee horta xanuunkaasi uu ku iman karayo weeyaan waxa la yiraahdaa haddana markii adduunkii la baarayay wadamadii baa la eegeego anigu maalinta cilmiga aan helay boogla medical evidence ma keen akhriyay waan rumaysan kari waayay wuxuu yiri dawooyinka noocaas dadka madooba la siiyaa dadka hindiyaankana dawooyinkaas la siiyaa indo-aashii la isku yiraahdo shiinaha iyo hindida iyo dadka cad kuwaas la siiyaa anigu maskaxiyan waa yar diiday waan xasuustaa nin daayir baan ahaa dabeedna tijaabadii ma sirba baan tijaabi qof baan dawadii caadiga siiyay marka dawadii caadiga siiyay ayuu waxba ka jawaab waayay kiniinka waa siinaysa qofkii kuma dawoobayo wixii aan ka akhriyay buuggii baan dib ugu noqday dabeedna waan sii dawadii kaanu bedelay caadi buu noqday idan wax rakaaga horeeyay weeyaano ay soo tajrubeeyeen marka waxay yiraahdaan dadka afrikaanka asalkoodu u badan yahay ee madow xanuunku way u nugul yihiin baa la yiraahdaa waa ka midna inaguna carab baynu inagu waan u nugulnahay nugeelkaas wuxuu baahan yahay haddana si gaar ah ilaalin buu u baahan yahay dhaqaatiirteenu runtii aad buu taqaanaa dalkeena joogta aad buu yaqaanaan dadka aasiyaanka ahna way wuxuu u baahan yahay ilaalin gaar ah dawooyin gaar ah ugu dambeyn dadka cadaanka ah ee cadaanka Yurubiyaanka u badan ina dawooyin gaar ah u baahan yihiin inkastoo bili aadan wada yihiin haddana inta ma kanu fahmnay haddaba cudurka masiibada leh waxaan u yargalaynaa si degdega war maxaynu cudurka ka sameyn karnaa saddex nooc baan kala qaybinaa marka inagu talaabadaynu qaadeenay saddex baan kala qaybinaynaa waa ka hortag intaan awoodi karayno ka hortag inaan sameeyno inaynu baaritaankeena nidaamkeena sameeyno iyo inaan iska daweyno saddexaas nooc bay noqonaysaa waxaan leenahay markaasi waxyaalaha la taabtay waxa kamida marka aad cusbada haday jirkaaga ku badato raashinka aad cunayso haduu cusbada ku badan yahay dib badan beeyt waana waxyaalaha imika adduunka digilada labada shay ee cadcad ee sunta ah la yiraahdaa waa sonkorta iyo cusbada weeyaan marka milixdii iyo sonkortii in la yareysto ayay waajibinaysaa marka in sonkortaasi milixdaasi aan aad iska karin qofkii dhiikar lagu sheego ama calaamada arkaan iska joojiyo ayaan aad ugu dhiirigelinaynaa waxaan leenahay dadkaasi
dood cilmiyeed baa ka taagan laakiin waxaan raacaynaa taan noo qoran waxay leeyihiin hilibka cas oo dhan dhibaato badan buu leeyahay bay leeyihiin marka ilaa inta laga soo caddaynayo innagana markaad hilibka cas cunto umad caafimaadda reer miyigeennii dad wada xoodan oo qurux badan oo socod badan bay ahaayeen wax kale ma ahayna dee hilib iyo cadi caana ku noolaayeen haddana markaad eegto noloshan imika casriga ee guryaha aan dhisanayn xaafadaha dhex fadhinee camalkeennuba xafiis iyo guri fadhi iyo istabameeraysi u noqday wax badan baa naga khaldamay oo dib u noqosho u baahan marka raashinkaynu cunaynaa waxaa la yidhahdaa waa in uu bataa saddex bay u qaybiyaan weelkii saddex bay u qaybinayaan waxaa la yidhahdaa kala badh saxanka aad wax ku cunayso haddii la awoodi kara dee waa inuu noqdaa khudaar waa inuu khudaar vegetables waa noqdaa kala badh noqdaa kala badhka soo harayna waa inuu badhna noqdaa wax borotiina kalluun oo beed oo hilib oo wixii ilaahay ku siiyo badhan rubaca kale yara soo harayna uu noqdaa wax yaraaye bariis iyo baasta iyo garow iyo digir iyo wixii dee lagu daray uu noqdaa weeyaan kelimadda ma lala fahmay annagu tajrubo kastaan samaynay waan kaftami jirnay waxaan odhan jirnay markaan safarada galayno khudaartu waxay ku sii hadhaa Hargeysa markaad sii socoteed hilibkaa sii kordha markaad burco maraysay laascaanood halkaas hilibkaa sii weynaada markaad soo noqotana khudaartii bariiskaa soo kordha odhan jirnay oo darafka ay kala yihiin marka runtii waxaan u baahnay dhammaanteen dhaqanka inaan qaadanno oo dhaqanka intaan qaadanno intaan awoodi karno raashinka khudaarta leh ee la isticmaalo dad kale balwadu waa waxyaalaha baabi'inayaba tubaakadii la cubay sigaarkii oo ka mid ah tubaakadii afkay gashadaan ama way cabaan oo sigaarkii u noqonaya iyo wixii la midka qaadkii baa ka mida yani waxyaalaha runtii aan dul taaganay mar kastaba researchkaygina labadii buug waxaan ku qoray jaad baan ku qoray in aad iyo aad looga taxadaro intii la awoodi karay waayo absad shay waxaa ka mid a imika maanta sheekhaad wada soconay baa waxa ugu lahaa wadamadii Yurub oo dhan waxa Ukraine weesbay waxa laga joojiyay raashinka laga soo iibsanayay khudaartii laga soo iibsanayay Iran bay joojiyeen waayo waxay dhaheen waxa ku farabatay bacrimiyaasha ku farabatay aniguna shakhsiyan mucjisaas ugu dhacdo anoo joogay Djibouti baan dekada booqday waxaan arkay marka aanu maalinta aan joogo 300 gaari ku dhawaayeen la rarayo oo wax ciido kale lagu rarayo hadhow markaan wareystaan ku warniyo waxaan maxay yihiin markaas waa wixii beeraha lagu hagaajinayay aqlabiyadina waxa la geenayaa zoonka oramada xer iyo wixii ka hooseeya oo jaadkiiba lagu beerayaa imika adduunyadana waxay leedahay wixii laga keenay Iran bas ka joojino Yurub dhan baa joojisay imika maxay ku joojinaysaa waxay leeyahay bacrimihii aad u isticmaalaan jiilaalkeena waad ogtihiin oo jaad ma jiri jirin oo hamadayga dili jiray qabow xoog la ka jira halka imika laakiin jiilaal iyo gu'ii xagaa oo wada akhtarkaas haddaba yaay naga baaraynagii yaa si ogaan doona inay khatarta ku sugan wax la mid ah way ku jirtaa marka tubaakadii alkoolkii khamrigu waa jira berigi hore wuu nagu yaraa imika dawadi ka arkay waxa booliskii dhibaato haysta habeenii maalinba TV-ga furaysa waxa ka soo baxaysta meel heblaayo lagu qabtay waxaasoo masiiba lagu qabtay marka taasi u baahan tahay waxa kale oo kamid ah waxyaalaha dufanka badan leh inaan iska ilaalino oo runtii ma taqaanaa baruurta badan iyo waxa badan in aad la iska kontrolo iyo wixii la midka ahaa sidoo kale waxaan leenahay markuu qofku rabo inuu istaweeyana inta hadduu ka hortago hadduu xanuunkii leeyahay labuunba u sugan baarid joogtaa dhakhaatiirtu waxay yidhahdaan 3 biloodba waxaa qofkii marka uu og yahay xanuunkii 3 biloodba inuu dhibaato gaarsiiyay jirkaagii kale isbaad haddii aadan ogeynna kulli 6 bilood mar isbaad 6 bilood mar isbaad oo adiga naftaadii garanay in isbaad weeyaan marka mashiinadan la wada galayaa wax un bay soo tuuri ciladun bay ku sheegay ciladaasina waxa laga yaabaa ka faa'iido oo markaaba dhaqsiis kaga duwayso laakiin haduu tooleyka inka waxa noogu badan qof u tagay feedha xanuun ama calool xanuun buu tagayaa wadamadeena dibadda ama Yurub buu tagay ama wuxuu tagay Hindiya loo badiyay ama Turki baaridii ma ku maloonaya kansar baa ku hayaba wuxuuna marayaa meel aan wax laga qaban karin marka ku tusaysa markaas in qofkii dhaqsi isku baaro bay keenaysaa markaas sidoo oo kaleento waxaan leenahay qofkii inuu dawooyinka loo soo qoro u qaato sidoo qaato waa inaga waxa nagu fara badan dad aan aqoon lahayn rag iyo haweenba u badan oo been sheegaya oo se kala oranaya ma haddii toonta la qaato
iyo haddii la qaato geed hebel aad cunto dhiigu kaa degaya maya weli la hadda ma hayno toomahan waa dawo waan wada qiraynaa laakiin ma hayno dooskii dhabtee loo isticmaalayay xaqiiqa mo dib u dhigaa dhiikarkii mise ma dhigo waa su'aal isweydiin leh marka inagu mashiinka yare wax lagu cabiro ka weyn halkaas la saaraa ama ka yar halkan baa la saartaa waa raqiis maanta qaarkood baa laga yaabaa inay shirkadaheenu wada keeno farmasi kasta weeyaan $20 $30 baa laga yaabaa in la siiyo uu qofku isku cabiri karayo ku ogaan karayo subax kasta inta uu marayo dhiig isugu ogaan karayo sidoo kale waxa muhiim ah kulli cilad baa la socota ama macaan ama indha xanuun ama wadna xanuun baa la socda inaad dhiikarka iyo waxa uu kugu keenay ciladana aad la daweysaa muhiima saddex waxa ugu dambeeya inaad bedesho qaabka noloshaada raashikaad cunayso jimicsi wax badan intaad awoodi karayso marka da'dan anuu aan soo gaaro kale kontonka markaad madaxa ka hor dhaafto waxa fiican socodka hadduu qofku isboorti ahaan jiray ordaya mooyaane socodka u wanaagsan waa ciladahaas ka fara badan dhammaanba hadduu qofku la yar yahayna inuu iska galo meelaha jiimka oo iska jimicsado ma xuma kulley jimicsi la isku raac waxaa la yidhahdaa haddaba ujeeddada ama hadafka ama yoolka aan ka leenahay dawadu maxay tahay waxaan leenahay waxaan kala jeednaa qofkii in aanu xubnahan kale ee jirka ku dhacay aanu dhibaateyn maskaxdii keliyihii indhihii wadnihii inaanu dhibaato gaarsiin ayaan horta ka hortegaynaa waxaan leenahay qaabka u shaqeeyaanna waxa weeyaan saddex baan soo sheegnay somahayn garaacii wadnaha quwaddii cadaadiska iyo dhiiggii xoog ku ordaya saddexdaas soo sheegnay markii hore marka imika waxaanu galaynaa farsamadii biyahan galaynaa biyihii ayaanu ka sheekeynay somahayn tuumbadiiba biyihii xoog uga socdaan waxaan idhi markaa maxaad samayn kartaa horta bamka in la soo xidho sama noqonayso bamkii wax laga soo qabta ama la yareeyo quwad wax kusoo tuurayay marka waxay leeyihiin waxa weeyaan quwaddii dhiigga ee soo tuuraya wadnuhu horta in la yareeyo oo stroke folium baa la yidhahdaayo in la yareeyo marka dawooyin baa jira yaraynaya kaa oo dhiiggii xoog le soo baxayay yaraynaya kuwa kale waxay samaynayaan maxaan soo sheegnay tuumbadii hadday sii yaraatana orodkii biyuhu soo kuma soconayn iminkana xeedada waxaan dhahay hadday xeedadkii sii yaraado quwaddii uu ku dhaawacayay keliyihii wuxuu xeedadii yaraayay wadnaha indhaha keliyaha maskaxda ku yaala buu dhaawacaya haddaynu laakiin ballaarino maxay keenaysaa qulqul buu noqonayaa dhiigii soo maaha marka kuwaasna afaasoo daliilka baleedaayo xeedaday ballaariyaan dawooyinkaasa la isticmaalaa kuwa ugu dambe waxa weeyaan in wixii siyaado ka ah laga daadiyo kaasina waa kuwan kaadi badiyaha loo yaqaan ee diuretics la yiraahdo qofka la siiyo dawooyinka noocaas la isticmaalaa ilaa iyo 7 nooc ilaa 8 nooc oo kala duwan oo dawooyina ayaa qofka dawo ahaan loo siiyaa laakiin waxa leeyahay qofkaasi dawada uu qaadanayo mar waxa loo siiyaa xabad single baa loo siiyaa oo qof kasta xabad baa la siinayaa haddii ilaahay ma keena xanuunkaagu cuslaadana waxa laga yaabaa in laba la sukaar raaciyo haddii uu sii cuslaado waxa laga yaabaa 3 sukaar raaciyo intaa waxa lagu dadaalayaa 3 dawo isku xiran ama kala furan baa lagu dhiibayaa marka waxaan u baahannahay in qofkii fahmo haddaanu dhiiggaasi ku soo celin si caadiga ahayd ugu yaraan kaba dhigba in uu 80 yimaado ama ilaa 90 uu yimaado kii sarna ilaa 140 ka yimaado oo kale hadduu intaa ku soo xajiyo kale xanuunkii qofka waxa laga yaabaa in uu nabaradii u gaarsiin lahaa inuu ka badbaadin karo ayaa suurtagal ah waxaan u baahnay markaasi in aynu ugu yaraan dadaalka iyo cadaadiska xooga badan saarayno inaynu saarano u baahannahay marka waxaan leenahay waxaan ku soo koobaynaa markaa in aadan dhayilsan kow xanuun haddii kale ku dhayilsan imisaynu aragnaa walaalaheen saaxiibadeen qaraabadeennii oo wada faalij iyo nabarro xanuun jiifa laa caadi walaa xisaab waan wada garanaynaa waayahay ha dhayilsan inuu aadna ku dhayilsanne waa marka labaadee walaal isbaadh waa talada labaad isbaadh oo dee waad ogta imika weliba ilaahay uuna horumariyo xaafad kasta iyo guri kasta aagaarkiisa ama farmasiya baa ka furan ama klinik weyn baa ka furan dalkiini maanta sidii hore maaha waa la soo baadhi karayaa ka kale waxa weeyaan
ugu yaraan haddaadan xataa adigu cudurkiiba qabinba laakiin bini aadan baa tahay da'da aan sheegayna kugu socotay nolosha ku jirto wuu iman karaaye 3 bilood 6 bilood 9 bilood haddaad awoodi karayso isbad oo ha cabsoonin qaar baa ku oranaya anigu bahalkan waan ka baqaa farmasi markaan saa u soo gala marka arkaba nin wuxuun bay sheegi balay sheegi warda balay sheegaas waxa wax ku taray adiga weeyaano haddii wuxuun lagu sheego lagu daweyn waa lagu daweyn idan balay la iska ka sheegi maaye laakiin inaad tagtaa qurux badan waxaa kaloo muhiima dawladda joogto dhiikarku ma bogsado intaan ognahay cilmi ahaan imika ma bogsado waxaan u baahanahay marka inaad oo joogto waa for life inta ilaahay nabad iyo nolol kugu daayay wad la qeysaaw imika la sheegaya macaankii in loo helay bankariyaska ama ganac wax laga bedelayo dawooyin la siinayo waa la sheegaya dhiikarkii dawooyinka la imika la keenay cusub soo baxaya waxbay badan bay qabanayaan marka laga yaabo in la gaaro maalin waxba la duweyn karayo insha Allah taala laakiin waxaan u baahanahay inaynu si joogto ah dawadeennii aanu qaadano wixii dhakhtar ku qorbe sida oo kale wala dhakhtar ku xidhno boodboodku laga fiican yahay jaarkaaga dhakhtar baa ku yaala xaafadda mid baa ku yaala magaalada degan tahay mid baa ku yaala rag aqoon badan loo la amaana baa jira iskaga xidhnow u tag hal lagu baaro dawadii hal lagu siiyo si joogto ah markaad xoogaa joogto ayaamaba as dareento khalkhalkii aad dareento ama aad iscabirto waa fiican tahay waayahay waxaa soo hadhay haddaad afku xoog la tahay anuu cuqaasho ixtiraam bay nagu leeyihiin wadaka volunteerka nin subaxii soo kaco usoo shaqo tagay inuu mushkilo xalliyo maaragtay waa cuqaasha wadika arkay laakiin waxaan dhahnaa markay ku dhacaan dhiikarku dee lama gali karayo waayo masiibo ku cayda iyo markaad gargashay eed wax kala qabato mid ku kiciya la waayi maayo oo imikadan waxaa la yidhaahdaa qofka lagu og yahay dhiikar cidda ka xanaajisa adduunyada maxkamad baa la saaraya qofka nin dhiikar la ka xanaajiya idoo kuma jawaabaye marka tiraada war waxaagan tiraada isuu jawaab siyaado marka isagu ma dhici isagu baa qalalaya marka ida dhiikirka ku kacay maskaxdii wax yeeli dhijirkii wax yeeli marka laga baxana marka waxaan qofkii marka aad tahay waayeel noqotaba kullay gar iyo arin iyo talo umad lagu la imanaya dadkiina dad dhaqankoodii toosan yahay in badan ma wana garanaynaa hadaba waxa dhex boodo faalijkaagu waa iska banaanka marka haba dhexgal waxa sabaysa habeenka oo iska racsi loo xatiraada waa anigu masaajidkan gala quraanka ala bidikrillaah ha meel bad ku dagaysaa aad ku nasanaysaa ku qaboobaysaa iska cibaadaysanaysaa haddii laakiin lugaha ku duurto masiibadii dib bay leedahay marka maxaa la yiraahdaa inta badan war walaal istilaal u bataalla marka barakallahu fiikum wixii aan ka garanayay haddii su'aalo jiraan mooyaane ilaahay idinka intaas ku soo gabagabeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إخوتي الأعزاء جزاه الله خير